السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا صور كان نيمو قداد كو أركيساني وحويا وويل كان يروح الله إلى صالح هارون cawleed faarax baa leedahay waxa adeer waa yaasiin cawleed faarax oo dadka reer Jabuuti u yaqaanaan Jibklin iyo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti yarkan yari waa beesha Ciise waa wuxuu ka yahay reerka mamaasan wuxuu ka yahay jufada Bahfuur labe ee Ismaaciil Cumar Geelle uu ka yahay uu beddelay magaciisa Saamiyu la baxay umkii Ilaahay uu abuurayna uu beddelay naasi iyo siil buu samaystay sida aad u arkaysaan markaas yarka yari wuxuu sameeyay waa dambi weyn oo xagga diin iyo dhaqan ahaanba ka hor imanaysa diintii iyo dhaqankii laakiinse isaga iyo Allah iyo u taala xisaabtu oo isagii Allah is xisaabinaya jirkiisana isaga la sidoo ka yeelay isagii Allah u taala eenaga danta naga jirta ee maanta aan ka hadlaynaa waa maxay waxaan uga hadlaynaa maanta keenay inaan ka hadalno yarkan waxa weeyaan kharashka ku baxay ina yarkan yar la qalqalo jirkiisa umkii Ilaahayna la bedelo naasiya siilna loogu sameeyo dawladda Jabuuti baa bixisay Ismaaciil Cumar Geelle bixiyay 100 waxay ku baxay 70,000 ilaa 120,000 oo dollarka Mareykanka ku baxay lacagtaana waa lacagtii dawladda Jabuuti ee ummadu ay ka gaajoonaysaa ama ka haraadsanayd yarkaasi kadib waxa loogu dhigay markuu siiliyo samaystay maxay naaso waxa loogu dhigay Aroos Jabuuti hotelka weyn ee Kambeski la yiraahdo dawladda Jabuuti leedahay Aroos loogu dhigay Arooskaasna waxa loo dhisay nin cad ninkaas waxa lagu sheegay inuu Mareykan yahay asalkiisu laakiin lama hubo nin cad baa loo dhiso imika qabo oo kula nool wadanka Holland kula nool oo ku qaba marka hotelka weyn ee Kambeski ee Jabuuti ku yaala caasimadda Jabuuti iyo Arooska loogu qabtay Ismaaciil Cumar iyo adeerkii Jibklin baa bixiyay waxa weeyaan lacagtii wadanka ee ummadii ka raadan tahay iyo maxay hayday waxyaabo faakihada oo Ilaahay xarimay lagu sameeynaya magaalada Yoboki ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ilma yar bahraad u baxtiyay oo dawladda Jabuuti waxay diidan tahay inay ceel u qodo magaalada Yoboki ee beesha Canfartu degto caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti 10 cisho ayaa bilaabiye la yahay oo dadku bilaabiye yihiin dawladda Jabuutina ay waxba ka qaban laadahay booyadana dadku ay ka dhaansanayaan haddaba lacagna waa loo helayaa umkii Ilaahayna lagu bedelo ummadiina waa loo laayeenaa ceel iyo biyo loogu keeno war bal arka war ciisow reer Jabuutiyow waa kii dhaqankeenu ahaa walaalka markhaatiga ku furmagtana la bixi ee aamuska ka baxa farta ku fiiqa ducaysta habaara ka kaca waxaan wax loo jooga ma hadii kale sidii reer qoomaluud Ilaahay u rogay baan loo rogi waxaan wax sax ma aha konton sano oo shaydaan Sheekh Muuse uu falaki diiniga dhigay baad aaminteen oo ogolaateen oo maqaamo ka tumteen oo wax kasta gasheen maantana konton sano umka Ilaahay la bedelo yaa nin soo socota marka walaalayaal waxa weeyaan tafsiirtii Sheekh Muuse halkay socoto waad arkaysiin waxay noo soo wadaana wax ka daran weeyaan ee ka kaciso waxan waa wax nalagu rogi doono haddaad